بسم الله الرحمن الرحيم maanta maxkamadda gobolka Banaadir mar kale waxaan kaga qayb galnay dhageysiga dacwadda ka dhana wariyaha goobjoog Cabdicasiis Axmed Gurbiye nasiib darro maxkamadda waxay ku xukuntay Cabdicasiis Axmed Gurbiye xukun aan cadaalad ahayn oo la soo dhoodhoobay oo siyaasad badan ay ka buuxdo oo ahaa 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo 5 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waxa muhiim ah in la isweydiiyo sida xukunka uu ku yimid iyo halka ay soo martay ama ay ka timid dacwadda ka dhanka wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye markii ugu horeysay waxa la xiray bishii Abriil 14keedii waxa loo haystay inuu qoray oo man lagu eedeeyay inuu qoray qormo ka hadlaysa in madaxweynaha Soomaaliya lagu eedeeyay inuu qaatay qalabka neefta siiya dadka COVID-19 ka qaba ee la yiraahdo ventilator-ka eedaas waxay ku saleysneed qodobka 220 oo xeeraalintu ay keentay ama ay soo qortay oo eed ahaan ay ugu soo oogtay Cabdicasiis Axmed Gurbiye markii la xiray laguna soo daayay damaanad oo banaanka uu ku joogay muddadaas dacwadiisa ay socotay ilaa 3 jeer ayaan dacwadiisa annaga iyo qareenadiisaba kaga qayb galnay maxkamadda gobolka Banaadir waxa xusid mudan in mar kastaba xeer ilaalintu ay soo bedelaysay eedeymaha lagu soo eedeynayo Cabdicasiis Axmed Gurbiye markii ugu dambeysay 7 bishii July garmaqalkii loo fariistay maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku qanci weysay eedeymihii loo soo jeediyay Cabdicasiis Axmed Gurbiye ee xeer ilaalinta xafiiska xeer ilaalintu ay keeneen oo ay ka bedeleen qodobkii 220 kuna soo bedeleen qodobo cusub oo kala ah 328 iyo 269 maxkamaddu waxay sidoo kale markaas dalbatay sidaan horey u sheegnayba cadeyn iyo inay soo sheegaan xeer ilaalinta cidda dhibanaha ka ah dacwadda halkii laga sugayay inay cadeeyaan nasiib darro waxay markii saddexaad xeer ilaalintu soo bedeshay dacwaddii dhoobneed ee Gurbiye ka dhanka ahayd waxayna soo oogeen 2 qodob oo cusub oo midkood uu yahay 269 iyo midka kalena uu yahay 328 oo ay ku soo dareen hanti dhowrka xafiiska xeer ilaalinta in lagu been abuurtay sidoo kale waxay keeneen warqad istaalka Martini oo iyaduna boobsiis lagu soo qoray 23 bisha July 23 bisha July markii garta la dhageystay eedeymo cusubna ay soo jeediyeen qareenadeenu si adag ayay u difaaceen arrintaas su'aalo culusna way ka dhasheen waxyaabaha la keenay oo yaab kale waxa ka mid ahaa inay xeer ilaalintu meesha soo istaajisay nin ay leeyihiin wuxuu ka tirsan yahay booliiska oo ay leeyihiin waa baare ninkaas oo aan baraha Facebook isticmaalin social media waxba ka aqoonin meediahana la soconin aan cadeyn karin xitaa waxa Gurbiye loo haysto ninkii markii ay ku fashilmeen waxay isku dayeen mar kale inay eedeymaha ka dhigaan kuwo iyaga dhinacooda u xaglinaya saakin maxkamadda oo aan dareemeyn inaysan madax banaaneyn oo aan dareemeyn in siyaasad badan ay ku jirto waxay ku xukuntay Cabdicasiis Gurbiye 6 bilood oo xarig ah iyo 5 milyan oo ganaax ah iyadoo cuskatay qodobka 328 oo ah faafin been waxay maxkamaddu tuurtay qodobkii 269 oo xeer ilaalintu ay markii saddexaad ku soo dareen eedeymaha loo haysta Cabdicasiis Axmed Gurbiye sababtuna waxay tahay maxkamadda sida garsooruhu uu sheegay wayna duuban tahay ee klibkaas uu dumay wuxuu yiri way cadeyn weysay maxkamadda in Cabdicasiis Gurbiye uu galay eedda ku xusan qodobka 269 oo ahayd in uu ma aragtay aflagaado ka sheegay xafiisyada dawladda sida garsoorka iyo wixii la mid ah iyo kuwaas wixii la mid ka waxa la yaab leh mar haddii ay cadaan weysay 269 oo maxkamadiiba afkeeda ay ka qirtay garsoorihii uu qiray 269 in lagu cadeyn waayo Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo la yiri maxkamaddu way tuurtay ahaana qodobkii sheegay cidda dhibanaha ama dacwadaha ah in haddana 328 ay maxkamaddu xukunkeeda ku salayso taas waxay cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeedna marqaati uga noqonaysa saxaafadda Soomaaliyeedna u cadeynaysa in garsoorka dalka aanu madax banaaneyn in maxkamadda ay tahay mid siyaasadaysan garsooruhu inuu saaka akhrinayo warqad loo soo qoray oo loo soo dhiibay halkaas ay ka caddahay garsooruhu inuu madax banaaneyn waxa uu sheegayo ma uusan ogeyn way noo cadeyd waan joognay indhaheena shantaha waana arkeenna wixii meesha ka dhacay in dhowr jeer la bedelay waxa ka darneed in garsoorka dalka aanu madax banaaneyn in go'aan cadaalad ah uu gaari kari waayay
in uu soo saaray go'aan u xaglinaya cidda markii hore Cabdicasiis Gurbiye soo eedeysay oo ah xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ee Villa Soomaaliya kaas oo ilaa iyo maalintii Gurbiye la xiray ilaa hadda aan cadeymahooda hayno xiriiradii ay la sameynayeen Gurbiye xiriiradii ay la sameynayeen xafiiska xeer ilaalinta xiriiradii ay la sameynayeen inay isku xiraan Gurbiye iyo xeer ilaalinta oo halkaas ay been abuur badan iyagoo ka faa'iideysanaya Cabdicasiis oo ah eedeysane aan isdifaaci karin iyagoo ka faa'iideysanaya darteed inay sameynayeen been badan oo ay dhoodhoobayeen xafiiska madaxtooyada ayaa eedan laga soo dhoodhoobay garsoorahan iyagaa telefoonka ku hagaayay warqadda oo meesha ka akhriyay saakin iyagaa u soo qoray waa xukun cadaalad darro ah oo aan ka xunnahay nasiib darrana ah in dalkan oo xilligan maanta maraya inay maarta arrin noocaas oo kale ay ka jirto waxaan mar badan codsanaynay garsoorka dalka inuu madax bannaanaado in la helo garsoor cadaalad ah oo ummadda Soomaaliyeed u kala garsoori kara madaxweynaha iyo qof waa isqabsan karaan laakiin garsoorka waxaa la rabaa inuu dhexdan noqdo oo cadaalad uu soo saaro waa nasiib darro garsoorka inuu u adeegayo ciddii soo magacaawday oo ah madaxweynaha warqad uu u soo qoray xafiiskiisa looga soo qoray in meesha uu saaka ka akhriyay waxaa mar badan la yidhaahdaa maxay wariyaasha dalka uga qaxayaan maxay dadka u cararayaan maxaa looga tegayaa waddankan looga qaxaya ayay dadku yidhahdaan mar kastaba laakiin waxa saaka ka dhacay maxkamadda gobolka Banaadir waxay caddayn u yihiin inaanay jirin cid dalkan sii joogaysa inaanay jirin cid ku kalsoonaan doonta garsoorkaas siyaasadda badan ku jirto inaanay jirin cid aamini doonta mar dambe wax maxkamadahan ay gooyeen Cabdicasiis Gurbiyena garsoorkaas ayuu dhibana u yahay maanta cadaaladda wuxuu ka sugaa Ilaahay xaqiisa laakiin annagu ka ururada saxaafadda SJS Soma iyo goobjoog oo halkaan nala joogto oo dhibana kiiskan u ah waxaan ka shaqaynaynaa qareenadeen annagoo la tashanayna wejiga ku xiga saan u wajihi lahayn annagoo weli isku dayayna inaan waddo sharci wax ku raadino sida dastuurka dalka uu sheegayo laakiin waxaa la yaab leh oo su'aal badan ay ka imaanaysaa halka annagu aan rabno inaan dastuurka ku taagnaano halka annaga aan rabno inaan sharci wax ku raadino in dawladdii iyo garsoorkeeda oo iskaashaday ay dulmi ku heshiiyeen in muwaadiniinta sida Gurbiye oo kale ay dhibaateeyaan ay ku heshiiyeen in abuujo maanta uu xabsi ugu jiro 5 bilood wax xukun aan la saarin eedayna loo soo jeedin dalka noocaas waa dalka aan ku noolnahay dalka noocaas waa dalka Soomaaliya ay cadaalad ka rabto dalka noocaas waa dalka ay Soomaali ka rabto amni aad iyo aad aan uga xunnahay dulmigaas iyo cadaalad darradaas dhacday waxaan ku soo gabagabeynayaa maalin kale oo madow oo saxaafadda Soomaaliyeed soo wajahday wabillahi tawfiiq